Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan baran doonaa sida loo sameeyo poster design kana shaashada ugu jeedin. Marka ugu horeysa waxaan soo furan doonaa file markaas tagno waxaan dhihi doonaa new markaan dhahno ka bacdi cabirka waan ka dhigan doonaa widthkiisa waxaa waaye meesha waxaan ka dhigan doonaa 1472 height-kana waxaan ka dhigan doonaa 1900 pixel aan dooran doonaa. Resolution-kana waxaan ka dhigi doonaa 300 marka waxaan dhihi doonaa create. Marka sidan loogu furmo waxaan iska dhigi doonaa right click intaan dhahno ama view intaan tagno waxaan dhihi doonaa clear canvas guideline aan dhihi doonaa. Okay, sidaan ka dhiganay. Marka waxaan soo qaadan doonaa waxaa waaye resourceska waxaa igu jira football resources. Ka bacdi waxaan aadi doonaa meesha ay ku qoran tahay garoyaasha stadiums. Waxaan soo gashin doonaa sawirkan drag and drop aan ku keeni doonaa. Sawirka waa soo galay. Ka bacdi waan soo jiidi doonaa ilaa hoostan aan keeni doonaa. Okay aan dhihi doonaa. Waxaan ku dari doonaa waxaa waaye waxaan dooran doonaa brush B for brush aan dooran doonaa. Ka bacdi meesha waxaan ka dhigi doonaa black meesha ay tahay black aan ka dhigi doonaa. Opacity-na waxaa daarat 100 ka dhiga daaratan adii 80 to 100 u dhahaysa. Ka bacdi marka brushka weynaysiin doonaa. Gaara waxaa kale aan soo gashin doonaa garoonka Liverpool si aan dhahno asna waa soo jiida intaan ku dhahdeynaa shaashadan ku dhahdeynaa. Marka sidaas ay tahay hoos aan keeni doonaa wax yariiska waa weyneynaa intaan waa enough waxyar kor u qaad. Asagana waxaan ku dari doonaa layer mask aan ku dari doonaa markaas aan dhaho marka brushka aad dooranayso waa inuu ku doornaadaa layer mask waa inuu ku doornaado. Ka bacdi waxaan aadi doonaa brush waxaa kale aan dhihi kartaa B markaa dhahdo saan ku soo gala intan inay black ahaato waay background layer. Ka bacdi marka sidan aan u masaxi doonaa wax yariiska introduce meesha opacity wax yariiska yaree ilaa ay iskaga dhex milmaayo yani in la kala dareemo ma rabno bas. Ka bacdi bankan hoos ilaa ay halkan keen waxaan dooran doonaa layerka waxaan ku laaban doonaa korkan aan jari doonaa sida hadda aan yeelayo kale. Waxaan ku darsan doonaa sawir haddana soo gashin doonaa sawirka playerka soo gashin doonaa. Wuxuu yeelaa marka players waa kana midkan aan soo jiidi doonaa halkan aan keeni doonaa aksa okay wuu weyn yahay zaaid u weyn yahay. Okay leh sawirka haddaa rabto inuu resolution-kiisa yaraan waxaa samayn doontaa right click intaan dhahdo convert to smart objects. Convert to smart objects wuxuu iga saacideynaa waxaa waaye haddaa sidan aan yeelo sawirkiisa ma dhimaayo resolution-kiisa marna isma dhimi doono. Okay sawirka ilaa halkan diyaar uu nagu filan yahay. Waxaan ku darsan doonaa marka waxaan dooran doonaa brush before brush markaas aan u doorto meeshan soo mujid waa yareyn doonaa. Kaasaan aan u doorano waxaan ka dhimi doonaa opacity-gooda yariiska shadow ahaan lay karabna si aan dhigi doonaa kan sawirka markaa u imaado waxaan ku dari doonaa gradient map waxaan dhihi doonaa asadan bilaaw noqday keligiisa waxaan kelvin mask aan dhihi doonaa anoo control ahay. Ka bacdi marka waxaan aadi doonaa deedan dool keliya aan dhihi doonaa waxaan ka dooran doonaa halkan red soo mujid redkan aan ka doortay waxaan dhihi doonaa marka control I to emboss
control markaas aan dooran doonaa B. kabacdi marka sawirka la soo qaadan doonaa background waxaan dhihi doonaa control T right click kabacdi flip horizontal aan dhihi doonaa kabacdi gadaal aan hawli doonaa weli sawir gadaashiis inta aan tago filter kabacdi blur kaashan blur aan dooran doonaa 20 way badan tahay ilaa 8 7 inta aan qoran doonaa magaciisa iyo fonta aan isticmaalayo waxaa waaye Taptic Sans waxaan 70 ka dhigay Control A Center Control D kabacdi waxaan bedeli doonaa kalarka white waxaan ka dhigi doonaa waxaa waaye red bio red aan ka dhigi doonaa diyaar waaye sawirkan wiil yariiska aan weyneyn doonaa brush ledger tweet sawirka hoostiisa aan geyn doonaa midkan control J midkana sawirka korkiisa aan dhigi doonaa kabacdi fill 0 aan ka dhigaa waxaan tagi doonaa FX blend option stroke ama badan yahay waxaan ka dhigi doonaa ilaa 2 oo kale aan ka dhigaa diyaar waaye okay midkan waxaan soo dooran doonaa new layout magacaan qori doonaa waxaa waaye magaca labaad buugga control A leh waxaan isticmaalaynaa Billy Smith font 29 ninkaan diyaar bartaan kalarkeeda dib iyo diyaar waxaan soo qaadan doonaa background midkan aan soo qaadan intaa ku dejina aan weyneyn doonaa kabacdi waxaan ka dhigi doonaa waxaa waaye linear baan ka dhigaa waxaan ku dari doonaa mask brush aan dooran doonaa weyneyn doonaa brush marka saan weydiiso make sure inta black inay ku ahaato waaye black harana white inta ujeedin wejiga meelaha uu ka muuqdo diyaar sarkeen maanta intuu noo eegay